subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu door koron warka subaxnimo ee raadiyaha Simba wasiir ku-xigeen ka tirsan xukuumadda Khayra oo iscasilay isla markaana eedeemo xoogan u jeediyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka gobolka Bari ayaa war ka soo saaray shirkado gaar loo leeyahay oo xiray dhammaan wadooyinka soo gala kana baxa xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso warar kala duwan waxay ka soo baxayaan dagaal al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah caawa xalay ku dhexmaray qaybo kamid ah xadka kala qeybiya Hiiraan iyo Bokool kusiimaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xalay kuna la qaatay madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shacabka ku dhaqan deegaanada Galmudug ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay joojiso faragelinta ay ku hayso dawlad goboleedyada ka jira dalka madaxweynaha Soomaaliland ayaa amar ku bixiyay in la soo qabqabto shirkado gaar loo leeyahay oo ka ganacsada dhuxusha ciidanka militariga Soomaaliya ayaa saaka howlgal ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe dawladda Turkiga iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah akhbaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idin haysana waxaa kamid ah barnaamij xor leh oo mar kale ka dhacay caasimadda dalka Masar ee Qaahira iyo dawladda Mareykanka oo sheegtay inay ciidamo geynayso wadanka Sacuudi Carabiya markale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku asteysan tahay 22 bisha sagaalaad 2019 intii aad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door koron warka subaxnimo ee raadiyaha Simba imikana warkii oo fidsan wasiir ku-xigeen ka tirsan xukuumadda Khayra ayaa iscasilay isagoo dhinaca kalena eedeemo xoogan u jeediyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdicasiis Beereed ayaa warkan faahfaahinaya cabdikariin khaliif cabdi dhalac oo ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa wasiirnimo war qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku soo qoray cabdikariin khaliif cabdi dhalac anigoo ah xildhibaan cabdikariin khaliif cabdi dhalac maanta oo taariikhdu tahay 20 bisha sagaalaad 2019 waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilkan ka hayay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa sababahan isku casilay waxaa kamid ah waxaan ku qanci waayay fargelinta dawladdu ku hayso dawlad goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan maamulka Galmudug oo hadda ka socoto qabanqaabo maamul u sameyn taasi oo baalmarsan rabitaanka dadka reer Galmudug iyo dastuurka dadka u yaal taasi oo keeni karta dib u dhac siyaasadeed mid dhaqaale mid amni iyo mid horumarineed sidoo kale waxay keeni kartaa kala fogeynta labadii gobol ee ku midoobay dawlad goboleedka Galmudug kuwaasi oo kala ah Mudug iyo Galgaduud waxaan halkan baaq ugu dirayaa ayuu yiri xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ilaaliso dastuurka dalka iyo nidaamka federaalka Soomaaliya ay ku heshiisay fargelintan ay ka daayaan dhismaha dawlad goboleedyada 2 waxaan kaloo ayagana baaq u dirayaa dawlad goboleedyada dalka ka jira inay iska xil saaraan ilaalinta shuruucda dalka u taal oo ah dastuurka ugu horeeya ilaalintiisa iyo nidaamka federalismka ay ku dhisan yihiin 3 sidoo kale waxaan kula talinayaa dadka reer Galmudug inay ilaashadaan midnimadooda iyo wadajirkooda ayna ka fakaraan aayahooda dambe waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan cali khayre iyo golaha wasiirada oo aan saaxiibadan nahay muddadii aan wada shaqeynay ugu dambeyntii waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeyn doono midnimada iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan si dhow ula socon doonaa maslaxadda dadka aan ku matalo golaha shacabka ayuu yiri cabdikariin khaliif cabdi dhalac oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dhirta iyo daaqa oo isagu xilkii uu ka hayay golaha wasiirada uu hogaamiyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre iska casilay warar kala duwan waxay ka soo baxayaan dagaal al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah xalay ku dhexmaray deegaano kala qeybiya gobolada Hiiraan iyo Bokool
al-shabaab aad hubaysan ayaa la sheegay inay weerar culus ku qaadeen dad xoolo dhaqata oo ku sugnaa xadka kala qaybiyay gobolada dariska ah ee Hiiraan iyo Bakool waxaana la sheegay in intaasi kadib maleeshiyad hubaysan oo dadkaasi ay ka soo jeedaan ay iyana duulaan ku qaadeen al-shabaab khasaare kala duwan ayaa labada dhinac soo kala gaaray qofkan oo kamid ah dadka dagaalamaya ayaa simba sidan u sheegay walaal horta dagaalkan Bakool xadka xudur iyo degmada Quraacdo ma qaybiya dagaalka ka dhacay wuxuu sababtiisa oo ah al-shabaab ayaa soo weeraray reer baadiyaha waxayna ka dhaceen geel sidaas uu dagaalka afkiisa hore ku bilowday geerishina waa laga riday dagaalkana wuxuu gebi ahaantiisba ku salaysan yahay nimanka nabadiidka in ay ku qabsadaan degmada xudur gobolka Bakool waxa weeyaan ciidamada calaqaawna iyo ciidamada maamulka Westland oo isgarabsanayna waxay ku sameeyeen isiritaad aan caadi ahayn ay kala hor imaadeen waxa weeyaan hadda al-shabaab kina hadda meesha kumaana guulaysan madrid walaalow sida waqtiga horta Soomaaliya maanta cid kastaba hubkeeda ayada sidito ma taqaanaay hadda dawladda ilaa ma taqaanaay dawladda militariga ee sida meesha ugu baxday 3 sano ka hor sida meesha ugu baxday cid kastaba Soomaaliya ayada un baa qoryaheeda wadata ma garan cid hubka ka qaadina ma jirto waxaan hubka ka keenaa anaga xoolaheena iyo waxaan ka keenaa walba xoolihiisa un buu ka gataa sidaas ana markii cadow Soomaaliyeed loo ogaaday hal Soomaaliyeed inay yihiin nimanka marka loo ogaado nin walba uu gatay ma garan walaalow hadda meelaha shaqooyinka ay ka dhaceen waa yaahile iyo meesha la yiraahdo diimaha intaba ma taqaana hadda caawa xaaladeeda way degan tahay laakiin waxa la dareemayaa dhaqaaqyo oo labada dhinacba oo dhici kara wax yar oo si kana wax ku dhici karaan ayaa jiro hawiyaan bilcille ilaa mooriiri meesha loo yaqaan burdo ilaa dhanaaw intaas koristaag ayaa loo sameeyay waa lagu godoomiyay adigu wuxuu kala goon yahay laba qaybood Bakool iyo Hiiraan ay awalba ma taqaana soo haysteen wadada dheer oo ka yimaada Hiiraan oo ma taqaana dhanka wadada Tiyoglow la yiraahdo awal maray jireen wadadaasna way goon tahay cidna mar kartana ma jirto shalay gabaldhici sidan oo kale dagaal u dhaxeeya dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah ayaa isna waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool shacabka ku dhaqan deegaanada Galmudug ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay joojiso faragelinta ku hayso arrimaha doorashada maamulka Galmudug Cabdi Fataax Muumin ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo dhabaan lagu wado in doorasho ay ka dhacdo deegaanada u kare maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ayaa shacabka ku nool deegaanadaasi waxa ay ka hadleen doorashooyinka la filayo in dhabaan ay ka dhacaan magaalada Dhuusamareeb qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in Galmudug ay u baahan tahay madaxweyne ka fikra danahooda isla markaana waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in ay ka wada qayb qaataan dhammaan bulshada ka soo jeeda deegaanadaasi dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayay ugu baaqeen in fargelinta ay ka dayso doorashada la filayo in dhabaan ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamul goboleedka Galmudug waxa la dooranayaa in lagu doorto karti hawlkarnimo mudnaan oo mudan yahay in uu ka qabto xil meeshan Galmudug madaxdeeda uu noqdo sifooyin noocaas ayaan jeclaan lahayn qofku hadii aan la fiirin la iska doorto ama lacag lagu doorto ama se lagu doorto ninkan xisbigayga weeye waxaan u malaynayaa inaysan Galmudug jugjug meeshaadii joogay noqonaysaa laakiin waxaan sharax madaxweyne waxaan jeclaan lahaa inuu yahay nin Galmudug ah oo aan meelna ka aadayn oo galab iyo subaxba nala jooga oo hooska dambana nala harsada hooska horena nala harsada oo aqoonna leh oo ilaahay aqoon siiyey damiir wadaninimana ilaahay siiyey in kursiga ninkii ku habboon oo hagi kara danta Galmudug iyo isku wadi karo dadka Galmudug inuu ku soo baxo in kow noqo lahaa ayaan rajaynaynaa inuu ku soo dhaweynaya marba madaxdii noo korto kursiga sharaxa madaxweyne ee Galmudug waxa jeclaan lahaa in sifooyin ay aad u adag lagu doorto iyo shuruudo aad u adag maadaama xaaladda ay haatan Galmudug ku jirto ay tahay xaalad adag marka xaalad adag waxa Galmudug ka saari kara qof adag marka qof adag ku leeyahay waxaan kala jeedaa qof backgroundkiisa waxbarasho oo ma taqaana aad u diyaarsan yahay oo aad u dhisan yahay sidoo kale backgroundkiisa hogaamineed oo aad u dhisan yahay aysan ahayn shaqadii ugu horeysay oo qabto inuu madaxweyne Galmudug ka noqdo ma joogto marka maanta Galmudug meel lagu abaal mariyo dadka lagu abaal mariyo ma joogto waxay joogtaa meel shaqo adag looga baahan yahay qofka Galmudug doonana waa inuu qof noqdaa shaqadaas ka soo bixi karo sifooyinka aan ku dooranayo aniga shakhsi ahaanteyda ayaa waxay tahay musharaxa inuu ahaada
musharax aqoon-yahan soo maamulay deegaano kala duwan nin aqoon-yahan nin khibrado fara badan leh samata bixin karana dhalinyarada lehna isfahanka markaas dhalinyarada. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashada la filayo inay ka dhacdo deegaanada Galmudug siiba magaalada Dhuusamareeb ayay kuwaasi ahaayeen waxaana u dambeeyay warka uu faahfaahinayay wariyahayaga Cabdi Fataax Muumin. markana magaalada Garowe magaalada Boosaaso dhexe maamulka gobolka Bari ayaa war ka soo saaray shirkado gaar loo leeyahay oo lagu eedeeyay inay xirteen wadooyin muhiim ah oo ku yaala bartamaha magaalada Boosaaso. shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa maalmahan cabasho waxay ka qabeen shirkado gaar loo leeyahay oo saldhig ka dhigtay magaalada Boosaaso kuwaas oo la sheegay inay xireen wadooyinka qaar ee magaalada Boosaaso. waxaa la sheegay inay dhagxaan iyo ciida ay ku jireen wadooyinka dhibaato weyn shacabka ay ku qabaan. arrintan ayaa waxaa la sheegay in loo gudbiyay maamulka gobolka Bari iyo kantaliska boliiska gobolkaasi waxaana taliyaha ciidamada gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in arrintan ay ka warqabaan isla markaana ay wax ka qaban doonaan. midda kale waxaan leenahay waa markii ugu horeysay oo aan maqlo qof iyo dhagax oo Boosaaso laga hirgelinayo. anigu Boosaaso war badan aan u hayaa luqyadu waa xiran yihiin meel kasta nin walba dhagax buu dhigtay jidkii buu jaray meel la mari karo ma leh gabadhii umushaahid meel la mari karo ma leh. waxaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha hadda ka hor waxaan u astaynay beelada meesha ay mari jireen qof dhaawac lama marin karin gabar umulaysa lama marin karin qof caadi oo gaari iska wataa ma mari karin. maantana xallaani weeye maanta tanu tiibay daba joogta waxay markhaanti ka tahay inay Boosaaso waa cusub geli doonto oo waa u bari doonto. waxaan leeyahay qof walba shacaba waxaan ugu boorinayaa inuu ka qaato qaybta uu ka leeyahay. qof walba horumarka qayb uu ka leeyahay ammaanka qayb uu ka leeyahay. midda labaad 3 maaday u socotaa wada furidaanu qof kasta inuu jid helayo qof kasta inuu ammaan helayo ammaan wadadiisa iyo banaankiisu ay barxanaan doonto. waxa ugu horeeyo qofka bini'aadanka u baahan yahay noloshiisu tahay amni weey amniga waxaan leenahay annagu habeen iyo maalinba u taagnaanayna laakiin waxaan leenahay shacabka aan wada shaqayno. maalmo dhaweyto aan dhalinyarada iyo iskuulada aan tagnay su'aalahayna weydiiyeen waxaa ka mid ahaa jidadkaasi waa ku jireen sida loo furayo ay u marayaan dhalinyaradu dadka u baxaa soo kacaya weeye mid walba gaari yar baa habartu gadayo meel buxnimaya jid mare buu leeyahay. maanta waxaan isha dhalinyaro jidkii waa furan yahay laakiin qaybtiina ka qaataan waxaan leeyahay dadka shacabka gacmo furan isku soo dhaweyno jid walba ha la furo ha loo fudayo. muxuu waxa loogu fudaynayo adigu tus meeshii lagu geyn lahaa qofkii diyaar u ah in meel loo geeyo waa diyaar sida gudoomiyuhu sheegay laakiin qofkii aan qaadanayn ama la waayo waa la qaaday. amniga annagu waxaan ballan qaadaynaa ciidankii diyaarka ahaan lahaa oo in daba taagnaan lahaa oo qofkii khalad la yimaado oo danta guud ka hor yimaada sharciga intuu kala yahay buu ka qaadanaya la marsiina. taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland oo sidii aad maqlayseen sheegayay inay la xisaabtami doonaan shirkado gaar loo leeyahay oo xirtay wadooyinka qaar ee muhiimka ah ee magaalada Boosaaso ee xarun ganacsiyeedka dowlad goboleedka Puntland. walina waxaad maqlaysaan dhageystayaal warka subaxnimo ee raadiyaha Simba markan akhbaaraadka dibadda. banaanbax rabshado wata ayaa waxa uu ka dhacay caasimada dalka Masar ee Qaahira. boqolaal qof oo watay boorar ay ku xirdan yihiin waan diidanahay madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa waxay iskugu soo baxeen fagaaraha loo yaqaan Tahriir oo ku yaala bartamaha caasimada dalka Masar ee Qaahira. dadka qaarkood ayaa waxa ay ku tuurayeen ciidamada bambooyin iyo sidoo kale dhalooyin laga soo buuxiyay waa dhalooyin markaasi kuwaas oo ku eedeynayay dowladda dalka Masar inay hareer martay sharciga u yaala dalkaasi. madaxweynaha dalka Masar iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxa lagu eedeynayaa inay dhaqaalihii hoos u dhigeen isla markaana canshuuro xad dhaaf ay ku soo rogeen guud ahaan wadankaasi Masar. ciidamada sida gaarka u tababaran ee la tacaala dibadbaxa ayaa waxa la soo dhoobay fagaarahaasi soo looga ilaaliyo xarimaha dowladda inay u gudbaan dibadbaxayaashaasi. guud ahaan dhageystayaal warkii ood kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta
warkayga cidda uu sheegay simbanews.com ayay ka heli karaan waadna ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga subax ee nabadgelyo. أهلا وسهلا سهلا. ورني وقورمات من دبدان بكوكو أوغاي. أنا شل يا إمي. شل ما تمي. الحمد لله. مرقى حالي راديان دار. حيه. وحنا مغلاه سيمبا وابريجها سيمبا ذا محبني يوم إذا عدبوا سيمبا عليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعة كذا ولا كساوينك ساسا سيمبا ناكوجا راديو سيمبا وإذا عد إسلام كي ومدى صد حيسو وجدد جودي أبارتي كشق سنة وأستان بدات راديو سيمبا أنبقات كهوشة برشة يوادك توا أصلاح قرميد وأخبارات كأدون كي آدوسو تبيسايو إده ذي تبين يسيو إيب كسوقي يلا نوع البيش الرحضايو وشيكتا أنت موك بقاشي alla baqaarkiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhahday baahinaysa irdaha loogu furaayay radio Simba ogaada radio Simba ima qashi ima dadaaliyo ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii ila u baahdo hamoogan radio Simba idaacada Simba waxa ay ku taalaa daarta Al-Khaliij kalena xiriir telefoon number 523 ama 6545 sasa Simba nakuja baafin Sucaado Axmed Maxamuud waxay baafinaysaa aabaheeda